بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي ومهده نبض يهور مركة يدل كين حرطة إنه المأمورين نسي وحنا صار بعضي صد حديد مع الموضوع هراء بنام الله يبنام حدي أو سن نبض إنه يقول ماضي إلهي ومهده له قال كل دم بنهم بلينا إياه إذا ماذا أمن هم بلينا إياه حزبي الله دم بنهم بلينا إياه وحنسي قارو مهضنا قياه تاجريش حزب كل بيه gobolada iyo degmooyinka iyo tuulayaasha iyo meel walba cududii ay muujiyeen iyo niyad samidii iyo kalgacalkii ay u muujiyeen xisbiga kulmiye iyo xukuumadooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saddexda hore ilaahay si wanaagsan oo nabad inoogu dhameeyay dhammaan qaranka waa hambalyeynaya xisbiga kulmiye saddexda cishaha hadhay saddexda waa wadaya barnaamijyadii fagaarayaasha maalinta jimcaha ah oo maalin cibaada waa soo gaabinaynaa saacadihii barnaamijyada jiray si salaada loo tukado waxa kale oo ku daraynaa inaanu samafal bixino hospitaalada iyo xiriyaha agoomaha gobolada oo dhan hawshii waa laba hawlood hawsha cibaadada iyo samafalku waa soconaysa hawshii qaran ee ololaha iyo xisbiguna waa soconaya waana iswaafaqaya waxaan u baaqayaa oo ka codsanaya taageerayaasha kulmiye meel ay joogaanba inay nabadgeliyo ku soo baxaan inay nabadgeliyada aad iyo aad u ilaaliyaan xilgaar iska saaraan ma ogolin dhalinyarada kulmiye inay wax farxumo ah ama xisbiyada kale wax u dhimaaya ama qalka nabadgelyada saaxiileynaya ma ogolin mana ogolin in magaca kulmiye cid ku labisan ama astaanta oo ay ku kacdo wax sharciga ka baxsan ama xeer nidaamka ololaha taa waa ku celinaya u dul qaadan kara mayno qof calaamada kulmiyesta inuu ku xadgudbo sharciga ama dhibaato dadka u keeno kulmiye wuxuu taagan yahay midnimo iyo nabad iyo asluub wanaag iyo horumar taa ayaan laga bixin haddii aan soo koobo mawaadiicda ugu muhiimsan ee ka hadlayaan axsaabta iyo murashaxiintu saddexdii maalmood hore waxay ahaayeen caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha waxaan isleeyahay murashaxiinta kale arrintaa waad uga dhowdihi xisbi ahaan iyo qof ahaanba afeef horta marka hore markaan ka hadlaya murashaxiinta kale waxaan doonayaa inaan caddeeyo muwaadiniinta somalilan xeerku ayaa qeexaya xuquuqda u siman yihiin qurba joog iyo daljoogba layskuma eedeyn karo lagama xigsan karo qofku waa qurba joog xuquuqta waddankuu la mid yahay lama kala sooci karo waa qalad waxaanan soo qaadanaynaa xeerka muwaadinka oo sheegaya 26 juun qofkii labada waalid halkan ku noolaayeen inuu yahay muwaadin somaliland qurbajoog wax badan bay dalka tareen dhaqaalay tareen horumar bay keeneen aqoon bay keeneen waa qadareyna waa ixtiraamayna laakiin marka qof lala hadlaayo ayuu ku dhex dhuman qurbajoog saddex murashax ku tartamayna waxa laga hadlay tacliinta labada murashax ee madaxweynuhu sharaxan labadaba waxa hogaansanahay tacliinta Soomaaliland halkay marayso dhibaatada qabto horumarka sameynayso waxay u baahan tahay waayo aniga gurigaygaan ka ogahay dhammaan carruurta waxa dhigtaa dugsiyada Soomaaliland laga bilaabay elementary ilaa jaamacad marka guriga ka dareemaha progresska sameeyaan iyo waxa dhiman iyaga carruurtooda iskuulada ma dhigtaan waa kala duwan distoorku wuxuu dhigayaa ninka dalka iska sharaxaya ee baasaboorka Soomaaliya haysta xaq mu leeyahay iska sharaxo Soomaaliland laakiin waa inuu labada sanadood mid deganaada taa waxaad moodaa inay ka dhigeen xeerka waafajinta nin xaaskiisa carruurta halkan mu keenin iyagu ma deganaa dareenkuna waxay markuu fahmayaan wax la qashanay dalka caafimaadku waa la mid aniga cusbaalkaygu waa ka Somaliland waa dhakhaatiirteena iyagu hadday duray qaadaan GPS-ki Finland bay tagaan taasina sax ma marka madaxweynuhu qosarka waa la wadaagtaa aday faamigaagu waa faamilaasha kale aniga hooyadoosteeda jira waxa qalliin degdeg oo cusub baahatay dhowr sano ka hor dhaktar biixi dhaktar koomba qalay waana ku guuleystay mid aad u culus waa dhakhtarada progresska ay sameynayaan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin private iyo public ba waan wax hogaansanahay waxa ka jira oo waa in aan ogeynayo duxaas bay ka hadlayaan to horumarinta dhaqaalaha waxa laga yaabaa inuu qof bangalka eegayo anigu waxaan ogahay oo xisbiga kulmiye tahay ujeedada koobaad iyo fishankiisu inay ogaadaan qofka Soomaaliland xeerada waxa ku jira oo qofku cunayo iyo tayada cuntada uu cunayo muhiimada koowaad qofka haddaan xurayni u gaajoonaya qof gaajoonayna waxa tarimay marka anaga waxa loo qorshaa in la soo saaro cunto ku filan dalka qorshaheedina waa dhammaystiray
dalku wuxuu u baahan yahay 430 oo tan oo carbohydrate wixii aan duxlahayn garow bariis qamadi baasto sawtorid haddii aynu qiyaasnay dalkeena intaas lagu soo saaraa iyo 20 saliid ah hadda oontii xoolo way noo dheertay kalluunkii waxaynu u baahannahay inaynu ka beero gobolba 60 gobol 13 kilomitir qura waanu helayna meel biyo 13 kilomitir ka boqo aanu ka ahayn beero waxaan oo qorshe sida kale dhaqaalu baahay 7% miisaaniyadda dalka ayaa cuntada soo saar food security kulmiye waxa ka go'an shanta sano dambe haddii la qorshe ku jirta in uu 2022 ka gaarsiiyo in 8% cuntada la soo baxo waxa la beeray 13 kilomitir qura gool walba barsanaaga inta leegtay 13 kilomitir laga beeray togdheer waa inta leeg hargeysa banka wajaala waa 1 kilomitir taasina waa cuntada waa wax hogaansanahay qolooyinka jira waxaan ummadda u sheegaynaa kulmiye haddii aan nahay inaan xoog ogaalnimo iyo dareen wadaag bulshada Soomaaliland anagu qorshaha iyaga iyo waxqabadkooda kula salaysay laakiin labada qorshaha kale ay u baahan tahay mala awal iyo yeer doona taarada lagu hogaamiyo taasina waa iga cadayn mar labaad waxaan ku celinayaa xisbiga kulmiye taageeraysa nabad inay ku weyn ololeeyaan oo aanay wax qadafa iyo wax gardaraa sameeyeen oo ay ka reeban tahay saddex cishada waa wadayna maanta jibcaana cibaadada iyo hawsha isku wadayna aad iyo aad baa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.